السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قار شرفت المركز الدولي كجوكتان كسر دواد يوتيوب جنالك زينب عينب ولا شيء زينب. ما إن شاء الله برنامج كنا حكسو قادم دونا إن هايبوثايروديزم وحلو يقانو إن وحنون كدعاء عنها قنجر كيالو قنجر معنا عنها كيالو لو يقانو تايرود إن هذا إن شاء الله وحنا هذا دونا وحيابها لو قرطو إن قبتد runtii xanuunkaas isaga ahna badanaa wuxuu ku dhacaa dumarka ayuu ku dhacaa rag iyo dumarba ku dhacaa laakiin dumarka ayaa aad ugu sii badan wuxuuna u keenaa dhibaatooyin badan dhanka caafimaadkooda haddaba haddaad daneynaysid in calaamadahaas wax ka ogaatid si aad mataqaanaa intaysan sheekada kugu sii ballaaran aad caafimaadkaaga usoo baartid ama check-up ugu samaysid fadlan daawo videoga oo dhammaystiran adiga oo mahadsan. Okay, walaalahay qaaliga intaan usii gudagelin xanuunkan iyo waxyaabaha lagu garto sida aragteen xanuunkan wuxuu ku dhacay gabar walaasheen ah oo youtuberad ah oo loo yaqaano Fadna Fatima I think usoo gaabs magaceeda Fadna AJ Fadna waa dad caan oo youtubers ah runtii markaan arkay iyada inuu mataqaana xanuunkan ku dhacayna runtii iyadoo markii horeba aan rabay marar badan inaan ka soo hadlo barnaamijka isaga ah gabdho badan ay soo weydiiyeen kana socoteen ayaa waxay u dhalatay inaan ka soo hadlo oo fikirkayga ka soo dhiibto runtii sida aad aragteen walaasheen ay sheegtay maaha cudurkan wax sahlan marka hore waxaan leenahay walaasheena ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha caafiyo waa qof dadaal badan oo maasha Allah karti leh waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed oo youtuberada aan dhamaanteen wada garaneen oo runtii anigana aan ku xirnay janaalkeeda aan daawado marka gabadhan iyada ah walaasheena ah xanuunkan intuusan helin ka hor yani sida iyada ay sheegtay waxay ahayd qof marba miisaankeeda ama culayska jirkeeda macnaha ilaalisa oo yani awood u leena ilaaliso oo yani macnaha dadka ma aha iska cayilasan markiiba oo zaid ku cayila ama u nugul inay cayilaan qof sida ay sheegtay hooyo soo ahayd way soo dhali jirtay badanaana dumarka markay dhalaan anaga hooyo aan naftiga hooyo waa ogahay taas jirkooda isbedel ayaa ku dhaca oo ma garanaysa u fududaata inay cayilaan markaasna waxa adkaatay in miisaanka dhaqso ka dhaco iyadoo waxay sheegtay in uusan mataqaana miisaan badan weligeed dhaqso u kori jirin hadduu koro xitaa kadib markay dhasho ay awood u lahayd in miisaankeeda iska xadido ama iska dhinto intii yarad kiilooyinkii markaas koray iyada ah waana maasha Allah laakiin markii xanuunkan uu ku dhacay ma garanaysa mataqaana ku adkaatay in miisaankeeda dhinto baryahan dambana ay ka samayso video ee kaga hadlayso ama ay gabdhaha ku dhiirigelinayso qaabka ay miisaankeeda u dhinto ayadoo xanuunkaas iyada ah qabta insha Allah walaalay qaaliga hadda waxaan ka soo hadli doonaa calaamadaha lagu garto xanuunkan isaga ah fadlan haddii calaamadaha aan soo socdo qaar kamid ah isku aragtid sida ugu dhaqsiyaha badan iskaga soo baar maxaa yeelay marka hore ma garan kartid mana dareemi kartid xanuunka isaga ah si yar fudud ayuu ku soo galgali doonaa laakiin hadhow hadduu kugu sii xumaado waxaa dhacaysa inay kugu dhacdo xanuuno mataqaana xanuunahaas ka sii weyn oo ka mid tahay inaad noqotid qof obese ah oo macnaha cayilka inta loogu talagalay in ka badan cayilan oo aad u buuran sidoo kale tan ina waxa laga yaabaa noqotid qof maxaa la dhihi jiray ee ku dhacdo caado wareer infertility ina xataa uur qaadi weyso inay kugu dhacdo waxay kaloo keentaa cillado badan ayay u keenaysaa caafimaadkaaga jirkaaga oo dhan ay isbedel ku ridaysaa haddii aadan sida ku dhaqsiyaha badan iska soo baarin iskana daaweynin insha Allah bidnaa karim marka hadaba ila daawada waa maxay xanuunkan isaga ah sideeda banaanba waa maxay marka hore taasan ka hadlayna marka kalena waxaan ka hadli doonaa calaamadaha lagu garto insha Allah marka hore aan usoo dhaadhacno waa maxay xanuunkan isaga ah haddaba markaan usoo dhaadhacno waa maxay hypothyroidism waxa waaye mataqaanaa underactive thyroid waaye sida banaan thyroid waxaa la dhahaa waa qanjir ku yaalo dhuunta ma garanaysaa cunaha halkan cunaha ku yaala wuxuuna u sameeyay sawirkiisa halkan soo dhigayaa sida butterfly oo kaleeto maxaa loo yaqaanaa butterflyga balanbaalista oo kaleeto u samaysan yahay yani muuqaal ahaan marka galaankaas marka isaga ah ama qanjirkaas wuxuu soo daayaa dheecaamo oo muhiim ah oo ay mataqaanaa hormones ayuu soo daayaa aad muhiim u ah jirka bini'aadanka marka haddii uu marka uu underactive noqdo uu shaqadiisa qaban waayo ama uu soo deen waayo dheecaamadaas waxaa dhacaysa jirka mataqaanaa chemical reaction in your body jirkaaga ma aragtay falalka ka dhacay inuu isku dheelitirkiisa uu mataqaanaa isku dhaxyaaco upset uu noqdo markaasna aad isku aragtid adiga ma garanaysaa waxyaabo badan oo jirkaaga ka dhacaya adigaba aad dareemi doontid calaamadahaasna waxaa kamid ah calaamadaha soo socda hadda idin soo tirin doona insha Allah bidnillah kamin halkan ay qoraysan oo kala ilaawin marka calaamadahaasna waxaa kamid ah number 1 inuu qofka isku arko inuu noqdo fatigue qofka noqdo macnaha qof daalan mar walba iska daalan tahay waxa ku daalan tahay mataqaanid ma garanaysaa because xaalad baa kula soo dirsatay caafimaad darro ah jirkaaga ka dhacaysa ma ogid waxaas aragtay adoo daalan
marka xisbiidinaysa maxaa la daalanta all the time dad yani wallahi waxyaabo kale la daldaalan way jirtaa laakiin hal calaamad un weliga ha qaadan calaamado badan baa soo aqrin doona haddii calaamadahan badan jirkaaga aad ku aragtay waxbaa ka qaldan laga yaabana inuu xanuunkan ku hayo lagana yaabo inuu ku hayo waxyaabo kaleeto oo marka dhakhtarka aad tagtid oo soo baartidna jirkaaga ama vitaminiska jirkaaga xitaa qaar haddii ka maqanya ama insufficient oo ka yahay oo mataqaana ku filan wax ku filan uu yaraaday oo kaleeto ma garanaysaa markaasna way kusoo sheegay dhakhtarka fitamiinada kaa maqan markaas aad qaadanaysaa always haddaad isku aragtid waxyaabaha daal fara badan oo kaleeto waxaas waxun baa jira waxaa kaloo jirto inuu qofku isku arko inuu sensitive u noqdo mataqaana qabowga oo kaleeto qabowga dhan waa ku dhibaya qabow uma adkeysan kartid qabowga dhan waa ku dhibaya calaamadaasna waa calaamad kale inta kamid ah waxaa kamid ah constipationka in mataqaana caloosha ay ku soconaysa caloosha ku fadhido kale yani musqusha ma saxaroonaysidba waxaa laga yaaba days inaadan ba saxarooninba waxaa kaloo isku arkaysa dry skin isku arkaysa maqaarkaaga oo ku qalqalalo qaleel fara badan isku arkaysa waxaa isku arkaysa weight gain waa kan ugu muhiimsan yani qofku inuu iskaba cayilo for no reason adoo meel waxba cunaynin ma saaragtay oo ama markaaga horeba si food miisaan ku kori jirin laakiin marka dambe saaragtay oo iska cayileeyo marka taasna way kamid tahay waxaa kaloo kamid ah buffy faceka inuu qofka wejiga ama indhaha hoostiisa meelahaas ay barbaraan maaragtay ama wejigu ka barbara oo kale kamid ah waxaa kaloo kamid ah murqaha maaragtay oo ku daciifa ama ku xanuunay mar walba murqaha oo week iska kaa noqdaba murqaha jirkaaga oo daciif iska noqda waxaa kaloo kamid ah iyo murqaha ku xanuunay ma garanaysaa xanuun oo kaleeto sida inaad qof maanta dhan jimicsanayo kale qof markuu jimicsado murqaha sooma xanuuno saas oo kale murqaha iska kaa xanuunayaanba waxaa kaloo kamid ah dadka qaar isku arkaan barbar meelaha laalaabyada maaragtay laalaabyada ka xanuunaya barbar yar baa kusoo galgalaya xanuun waxaa kaloo isku arkaysaa irregular periodka xilliga mataqaana gabdhaha ay ku dhacdo caadada oo kale caadadii oo waqtigeeda imaan la ama soo hormarta ama dib dhacdo irregular noqoto macnaha waxaan yani saxneen sida aguna gabdhaha waqti ay ku dhacdaa waqti ka waqti ay ku dhacdaa bishii hal mar ay ku dhacdaa yani shan laatan beri afar laatan beri dad qofba in bay ka maqnaataa xilli bay kugu dhici jirta weligaaba soo hadda waxaa aragtay bahalka isku dhexyaacay ma garanaysaa maabi bishii 2 jeer kugu dhacay ama kaaba maqnaaba bil 2 bil ama soo hormara waxnaas irregular markuu noqdo isku dhexyaac uu bilowdo in caadada qalqal uu galo qalqal kaa galo taasina waa calaamad kale oo isku arki kartid markii aad qabtid cudurkan isaga aan kasoo hadalnay waxaa kaloo kamid ah timahaaga jirkaaga madaxaaga waliba timaha madaxaaga kale oo qafiif noqda ma garanaysaa tinin qafiif noqda marka waxaa kaloo kamid ah wadna garaacaaga oo ma garanaysaa isagana wadnihii oo tartiib ku garaacmaya daciif wadnahaaga jig si tartiib ku garaacmaya waxaa kamid ah depressionka kamid ah depression qofka inuu iska walwalsan yahay ama walbahaar ama iska murugsan yahay meel laga haystaa uusan garanaynin waxaa kaloo kamid ah impaired memory in qofkii uu xasuusta xitaa ay ku yaraato xasuustii yabarkaa noqonaysa daciif noqonayso shayga meel dhigto ma xasuusin hadhow alla aawe intaa dhiga allada waa raadinaysa hortaada hadduu doono yaala ama gacanta ku haysataa waa raadinaysa marka ugu dhacday wallahi anaga ku dhacday kun jeer I think aniga naftirkeyga waxaan horta calaamadahan badankooda oo isku arkay welina iskama soo baarin cudurkan isaga ah inaan iska soo baaran rabo insha allah markaan iska soo baaro dhakhtar aadana insha allah waxaa la soo dhaho waan idil soo wadaagi doonaa haddii aan qabo iyo haddaan qabin insha allah waxaan rajayn doonaa inaan qabin billahi karim laakiin waa isku arka calaamadahan maybe wax kale ahaaya oo fitamiinaadka jirka qaar iga maqan ama hormone imbalance waxa la dhaho hadda koraan kasoo hadlo videoga dib ugu noqdo waxyaabahaas ayaa isagan haysta marka anyways waa soo ogaan doonaa insha allah waan soo baari doonaa marka intaas calaamad oo hadda aan idin soo sheegay waa calaamadaha aad isku arki doontid markii cudurkan uu kula soo darso ama kusoo waajaho haddaba haddii qaar kamid ah ama 5 kamid ah ama 6 kamid ah isku aragtid ha fududeysan isla markii tag mataqaana dhakhtar iskana soo baar maxaa yeelay dumarka maxaa la jiro really waa dad maxaa la jirkooda yani haddaadan jirkaaga caafimaadka ka taxadirin hooyaa tahay uur baad qaadaysaa waad dhalaysaa waad nuujinaysaa maxaa la dhihi jiray waxaa kugu dhacaysa macnaha in aad cimri degdeg kugu dhaco in waxaa kugu dhacaysa aad fool xumaadi waayo jirka markuu qalqallo timihii markay ku khafiifaan markay ku daataan yani waa fool xumo really cudurrada noocaan ah ma aha waxa fiican waa fool xumo wuxuuna u baahan yahay in qofku uu marka iskala tacaalo way kugu dhici kartaa
laakiin marka iska daaweysid maasha allah baa noqonaysaa insha allah bidnillahi karim waana ka fiicnaanaysaa insha allah waxaan kasoo hadli doonaa fiidiyoyaasha xiga sida waxyaabaha dabiiciga ah oo gurigaaga dhexdiisa isku daaweyn kartid laakiin ha is oranin xanuunkii baan isku arkay maxaa la dhihi jiray waxaan sameynaya marka anaa isdaaweynaya anaa dhaktar isku noqonaya wax la dhaho iska dhaaf dhaktar biliis ha isku noqonin maxaa yeele horta kow waa inaad xanuunka inaad qabtid soo ogaataa markaad soo ogaatid kadibna adiga gurigaaga waa isku racaayan karta dawada dhaktarka ku siin oo isticmaal karta oo waa muhiim laakiin ha oran kaliya calaamadahan waa isku arkay aleele anaa isdaaweysanayo oo guriga waxyaabahaas sameynayo soo oranin fadlan marka hore iska soo baar insha allah bidnillahi karim maantana videogan intaas uu ka egyahay fadlan haddii aad ka heshay like saar haddaad nagu cusub tahay soo dhawo welcome ayaan ku leenahay subscribe-kana saar dhammaantiina wax alle waxaad jeceshiin inaad videoyaasha dambe kaga soo hadlo hoos iga soo muujiya intaa video lamid aan ku kulmi doonan dhammaantiin waxaa idinkaga tegaya khayr iyo baraka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu